booliiska dalka Norway ayaa ku wargelinaya dadweynaha kala duwan ee uu ka dhacayo ID-gooda iyo baasaboorradooda in ay ku baraarugaan oo ay soo codsadaan waqtigii loogu talagalay inta uusan ka dhicin ID-ga iyo baasaboorka. Arrintan ayaa ka dambeysay markii la sameeyay abka loogu talagalay in lagu dalbado ID-ga nationalka ka oo loogu talagalay qoondadeeduna tahay in ka badan 3 milyan iyo bar Norweji ah in ay ka soo codsadaan hayeeshee ilaa iyo hadda sida ay booliisku xaqiijiyeen waxa codsiyadooda soo gudbisaday in ka badan 500,000 oo qof kuwa oo soo codsaday ID-ga online-ka ah. 2024 ayaa waxaa baasaboorradooda iyo ID-kaaradooda uu ka dhacayay oo soo codsaday in ka badan 655,000 oo baasaboorro iyo ID-kaaro kala duwan ah, halka ay booliisku sheegeen in sanadkan cusub ee 2025 ku dhowaad 395,000 oo baasaboor iyo 37,000 oo kaararka aqoonsiga ah ay ka dhacayaan dadweynaha ku nool guud ahaan dalka Norway. Waxa ayna ku baraarujinayaan in ay ID-yadooda iyo baasaboorradooda soo codsadaan waqtigii ku habboonaa haddii ay safar iyo arrimo socdaal uu ku jiro. Magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway oo inta badan la circiraysa dambiyada kala duwan ee dhalinyarada iyo daraagiska ayaa maamulkeeda waxa uu qalinka ku dugay adduun lacageed oo gaaraya 6 milyan oo koronka Norwejiga taa oo ka qayb qaadan doonta sidii looga hortagi lahaa dhalinyarada kala duwan ee ku kacaysa faldambiyada iyo sidoo kale daraagiska ay isticmaalayaan. Hay-adda MST oo qaabilsan arrimaha dhalinyarada iyo daryeelka qoyska ayaa sidoo kale arrintani loogu deeqay waxa ayna samaysay gruubo kuwa oo caawin doona dhalinyarada kala duwan iyo caruurta da'doodu u dhaxayso 12 jir ilaa 18 jir kuwa oo waqti gelin doona waqtina la qaadan doono. Agaasimaha hay-adda adeegyada caruurta iyo qoyska Sheleti Ostiling ayaa ka dhawaajiyay in habkan cusub ee looga hortagayo dambiyada dhalinyarada ay ka qayb qaadan doonto hirgelinta mashruucan waxa uuna ka muujiyay rajo aad u wanaagsan in ay wax weyn ka tari doonto. In ka badan 100 qofood ayaa u geeriyootay khamri ay cabeen gudaha wadankaasi Turkiga kuwa oo lagu sameeyay guryaha halka qaar kalena qaab tahriiba loo soo geliyay wadanka Turkiga. 70 qofood oo kamid ah ayaa ku geeriyootay magaalada Istanbul ee caasimadda labaad ee dalkaasi halka 33 qofood ay ku geeriyootay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. 230 qofood ayaa la dhigay isbitaalada kala duwan ee dalkaasi iyadoo la soo sheegayo in 40 kamid ah ay xaaladoodu halis ku jirto. Duqa magaalada Ankara Recep Sahin ayaa ku waramaya in maalmihii u dambeeyay ay sii kordhayaan dadka u geeriyoonaya khamriga kala duwan ee cabayaan kuwa oo si tahriiba loo soo geliyo wadanka qaarna lagu sameeyo guryaha wadankaasi. In ka badan 13 qofood ayaa lagu qabtay magaalada Ankara ee caasimadda wadankaasi Turkiga halkaas 11 qofood lagu qabtay magaalada Istanbul kuwa oo lala xiriirinayo in ay ka ganacsanayeen khamrigan sharci darrada ee sababay dhimashada badan. Hay-adda tirakoobka dadweynaha dalka Norway SSB ayaa ku waramayso in sare u kac baahsan laga dareemayo qiimaha kala duwan ee la kala siisto maciishada qudal daruuriga ah sida cunnada iyo cabitaanada marka laga reebo khamriga. Hay-addan ayaa ku waramayso in sare u kacan uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee bil gudaheed ah taa oo gaartay 2.3% inuu sare u kac sameeyo qiimaha kala duwan ee maciishada la kala siisto. Arrintan ayaa ka dhigan in bil gudaheed ay kor u kacda qiimaha kala duwan ee la kala siisto cuntooyinka dukaamada lagu iibiyo in ka badan 2.3% taa oo muujinayso ididiila ah in sare u kaca qiimaha kala duwan ee la kala siisto badeecadaha lagu iibiyo dukaamada ay sare u sii kici doonto sanadkan cusub ee 2025 halka ay wararka ugu door karaan maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdullaahi Shiine.